daawadayaal ku soo dhawaada National and international news brought to you by Dora TV. daawadayaal waxaa la gaaray xilligii aan idin soo gudbin jirnay National and International News habeenkan caawa anigoo Saalim Dora ayaa idin soo gudbin doona istuudiyahan ku yaala bariga magaalada London ee waddankan Great Britain wararka Britain isboortiga iyo arrimaha bulshada Dora TV Dora TV. Perfect Moroccan sauce dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Britain iyo wadamada ay dariska yihiin waxay idinku bishaaraynaynaa in haatan waddankani la keenay Perfect Moroccan soup oo tayadeedu aad u wanaagsan yahay isla markaasina organic ah halkii caag waxa ku jira 1 kiilo waxay kala yihiin olive oil black caviar oo ah ukunta malayga argan oil oo caan ku ah waddanka Morocco sidoo kale olive and honey markaas la isku daray haddii xaajigaaga aad dareemayso in maqaarkiisu isbedelay wiilka maqaarkiisu caajis oo ka muuqdo inantan ay u baahan tahay inay hablaha kale ay la tartanto xaajiyadanu ay u baahan tahay in ay isyaro nuuriso Perfect Moroccan soup wax weyn ayuu wajigaaga iyo jirkaaga labadaba uu ka bedelayaa haddaad ku qabayso jirkaaga waxaad dareemaysaa inuu aad u yara dibcay isla markaasina wax saliida ama kareemo uma baahnid Perfect Moroccan soup haddii aad u baahan tahay macluumaad intaani ka badan oo ku saabsan saabuuntan waxaad nagala soo xiriiri kartaa taleefanka haatan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وعنو وناكسن دمان داودياشينا شرفتا قيمها لميل والباد عالم كادنا قد داونيسان كسو دواد ناشنال ان انترناشنال نيوز هبين كان عاو اي تاريخ دو تهي سقال ايه طبنك بشي رجب سنة كاكون افر بقولي افرتن ايه تضباد اهجريد اسلامك لنمد اسديد بشا كوباد ايه سنة كا لابدو كونيشان الى باتنكا ايه ميلادية دا وراركينا ناشنال ان انترناشنال نيوز هبين كان عاو وحا اقورين دونا دولة waddankan Ingiriiska oo aad kaga fikiraysa cost of living oo runtii xaaladda dhaqaalaha waddanka iyo xilliga qaboobaha oo aad u ba'an oo bulshada waddankani ay la ildarin yihiin dawladda oo maanta dib ugu soo laabatay baarlamaanka waddankan Ingiriiska oo xilli fasaxa lagu jiray ayaa dad inta badan siyaasadda aad kaga hadla waxay sheegayaan in inta dhiman qaybta wararka waddankan Britain ayaan ku soo qaadan doonaa sidoo kale daawadayaal nin u dhashay waddanka Turkiga isla markaasina kumanaan qofood oo waddankan Britain qaxootinimo u soo galay maanta lagu xukumay muddo 11 sano ah iyo ganaax lacag aad u tiro badan oo akoonka ugu jirtay oo laga freeze gareeyay markii ugu horeysay xisbiga Labour-ka ayaa la sheegayaa in uu markaas ama xisbiga Conservative-kan iraahdo ayaa la sheegayaa in uu ka yara dhibco koreeyo xisbiga Labour-ka laakiin xisbiga loo yaqaano Reform ayaa labadaba ka dhibco badan haddii haatan la qabto doorashooyinka waddankan Britain markab weyn oo laga leeyahay waddanka Ruushka iyo mid kale oo laga leeyahay waddanka Shiinaha oo shidaal wada ayaa lagu qabtay badweyn gudaheeda iyadoo Ruushka uu sheegay in markabkaasi iyaga ay leeyihiin goobta lagu qabtana oo sharciga caalamka uu ka fog yahay in markaasi la taabto daawadayaal wararkaasi warar kale oo xiiso badan haweeney ayaa lagu dilay magaalada Soomaalidu ay ku badan yihiin ee Minneapolis Minnesota qolooyinka ay CE ama ICE loo yaqaano ayaa haweeneydana toogtay waa war cusub oo dhawaan markaasi lagu soo gudbiyay telefishinada waddankan Ingiriiska caalamka idin aad loo hayay naagtaasi ama haweeneydaasi la dilay ayaa la sheegayaa in dhalashada waddanka Mareykanka ay haysatay sidoo dilku u dhax wararkaasi warar kale xiiso badan daawadayaal habeenkan caawa ayaan ku soo qaadan doonaa wararkeena waddankan Britain iyo Saalim Dora ayaa idin soo gudbin doona istuudiyaha ku yaala bariga magaalada London ee waddankani Great Britain ayaan idin kaga soo gudbin doonaa daawadayaal khayrkii wanaag aan ku bilaabay sida la socotaan ceelkii ma mahajira Xaaji Ciise ayaa wili qoditaankiisa uu ka socda maalinta afraad ayuu maraya magaaladaas oo runtii biyo la'aani ba'an ay ka jirto magaalada Janaale dad badan ayaa waxay dhigta ay ku hayaan magaalada Janaale inay tahay magaalo aad u nimco badan yes Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu ka dhigay magaalo aad u nimco badan laakiin
waxa weeye magaaladii dhibaato culus oo dhanka dryness ay haysta dadkii waxa ay leeyihiin biyihii webiga sidii hore u soo gaari jiray uma soo gaaro arrintan ayaa saameyn weyn waxay ku leedahay biyo xireenkii ay samaysatay waddanka Ethiopia oo biyo ku filan aanan soo gaarsiinaynin webi Shabeelle iyo webiga Jubba webiga Shabeelle ilaahda raali aniga hada way qofka doosan kala garanaynin labada webi sida ay waddanka ugu soo galaan waxa laga yaabaa inuu isxitaa iska yiraahdo webiga Jubba laakiin sidaas ma waa webiga Shabeelle oo runtii biyihiisu aad u yaraadeen ilaa ay xilligii kanaalkaas weyn ay fureen dowladda waddanka Ethiopia saameyn weyn ay daawadayaal ay ku yeelatay biyo la'aan aad u baahnay dadka haya sidoo kale daawadayaal meelaha ay dadka biyaha ka soo qaataan halkii foosto $1 in ka badan ayaa la iibinaya dadkii $1 sheegay xitaa wax u dhow ma soo maro sidaas darteeda daawada runtii ceelkaas wax weyn ayuu ka bedelayaa nolosha dadka ku nool magaaladaasi iyadoo intii ceel aan qodnay runtii qaar badan oo kamid ah safaf lagu jiro oo biyo laga dhaansanayo dadkii ceelashaas qodana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajr iyo xasanaad ha ka siiyo daawada hadduu ay baraali ka noqdo insha Allah sidaas ayaan isha u hayn doonaa sidoo kale hooyooyin caruur agoon haysta ayaa maanta in yaro kaalmo ah la gaaray wariye samafale Abubakar Umar Barakaale oo maanta goobtaasi gaaray ayaa runtii waxa uu nala soo wadaagay clipkaas oo aan filay in aad ila daawan doontaan dhawaan adeeba subhanahu wa ta'ala oo raali oo daawadayaal oo ka noqdo sidoo kale daawadayaal wariye samafale Abubakar Umar Barakaale Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u barayaa in safar salaama uu geeyo isagoo markaas soo cimreysan doona runtii wariye samafale Abubakar Umar Barakaale waxaad ku barateen in uu ahaa nin dhalinyaro ah wariye ah wadaad ah ahlu khayr ah oo runtii masjidkii weynaa ee Ar-Rahmaan dhisay ayaan dhihi karaa waayo runtii qofka markuu aamin uu yahay ayaad wax ku aamin kartaa Soomaa masjidkaas aadka u weyn oo qeybaha kala duwan leh oo madrasada Ar-Rahma ay ku dhex taalo caruurtii yaryara ay markaasi quraanka ay ku xafdinayaan ay ku baranayaan waa goob khayr badan oo dadka qurba jooga ay markaasi ay iyaga ay sameeyeen isla markaasina Ilaahay subhanahu wa ta'ala walaalkeena wariye samafale Abubakar Umar Barakaale Ilaahay waxaan u baraynaa inuu umradiisa u fududeeyo inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu safar salaamo geeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan kaga baryaa intuu goobtaasi joogo Maka iyo Madiina inuu cibaadada uu ka aqbalo runtii dad badan oo asxaabteeda kamid ah ayaa Abubakar Umar Barakaale ka saaciday dhanka safarka runtina waa muhiim in hadiyad aad u qurux badan aan la gaarno qof kasta oo markaasi walaal ah oo ka tirsan Ar-Rahma Group Ar-Rahma Group waxa ku walaaloobay kumanaan qofood oo ahlu khayr ah Ar-Rahma Group sida aad magaca aad kaga jeedaan waxa weeye magac Ilaahay magacyada kamid ah oo runtii naxariista ay dadka ay u naxariistaan runtii caruurta masaakiinta iyo fuqarada dad badan runtii waad garan kartaan qofkii mas'uuliyadaas naga hayeen runtii we will feel it waan dareemi doonaa in uu teamku ka maqan yahay laakiin se dhan wanaagsan uu ku maqan yahay waa uu runtii cibaadaysanaya balantii aan qaadnay in aan cimro geyno Ilaahay subhanahu wa ta'ala naguma uusan ceebaynin waa uu baxaya waa uu soo cibaadaysanaya wuuna noo soo duceynaya waxaan filayaa daawada in oo dad badan oo ahlu khayrka ah oo aad uga qayb qaatay kaalmada caruurta agoonta masaakiinta fuqarada ramadaankii dadkii la afurinayay sidoo kale ceelashan la qodayo waxyaabo badan ayuu runtii nagala qayb qaatay qof waliba oo wanaag samaystana sidaas oo kale ayaa runtii waxaan isku daynaa in sanad waliba visa aan dhiibno inaan qof aan ugu farxino Dora TV iyo Slim Travel and Tourism iyo teamka Ar-Rahma Group oo meel walba caalamka kaga nool ayaa runtii aan uga mahad celinaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala
safar salaam ha ka yeelo abubakar cumar barakaale wariye samafale daawadayaal waxaan u gudbayaa wararka waddankan Britain sida aad la socotaan xaalad dhaqaale iyadoo hore waddankan Britain ay kaga taagnayd ayaa misana waxaad moodaa in qabow ba'an oo waddankan uu ka jiro xafiiska saadaasha hawada ee waddankan Britain ayaa waxa ay sheegeen in maalmaha foodan ugu soo haya ilaa maalinta Jimcada ay waddankani uu ka dhici doono qabow aad u ba'an jaraa'idiyada dhanna waa laga soo bandhigay snow oo haddana aanan caadi ahayn oo storm wata means dabeelo wata baraf dabeelo wata ayaa runtii waddanka ka dhici doona iyadoo markaasi ay aad u kala duwan tahay goobaha markaasi ay dabeelahan ay ka dhacayaan iyo barafka iswata haba ugu badnaadaan la sheegayo in qaybaha waqooyiga waddankani England ay Waleska inay runtii sidoo kale South Waleska ay ka dhici doonaan maalinta habeenimada Khamiista ilaa iyo maalinta Jimcada ilaa iyo Sabtiga foodan ugu soo haya oo runtii la filayo in barafkani ba'an oo waddanka uu ka dhaco goobo badan oo waddanka ah ayaa waxaa la arkayaa in ay barafkaasi aadka u ba'an oo ka jiro ilaa haatan wax dhimasho ma jiro laakiinse dad badan oo markaasi ku jabay ama dhaawacyo kale ka soo gaaray iyagoo kufa ayaa jiro maabka waddankan Ingiriiskana oo aan rabo inaan idinla wadaago daawada waxaad moodaa in yellow warning uu ku jiro yellow warning waxaa la yiraahdaa xaalad degdeg marka uu jiro wada ujeedaan ama leena dadku ila daawanayaan in xaaladaasi degdeg uu ku jiro oo waddanka oo idil uu saameyn weyn uu ku yeelan doono gabi ahaan snow iyo ice labadaba magaalada London ayaa qabow ku jiro baraf ma jiro laakiinse waxaad moodaa in uu qabowgu aad u ba'an yahay oo runtii dad badan ay la ildaran yihiin durayga ama hergabka qof waliba sida uu markaasi u yaqaano siday doontaba ahaatee dowladda ayaa waxaa la sheegaya oo maanta dib ugu soo laabatay baarlamaanka waddankan Britain in ay doonayaan in ay runtii dhawaan ay ku dhawaaqaan cost of living oo micnaheedu uu yahay in wax lala gaaro bulshada waddankan Britain iyadoo habeenkii xalay aan idin sheegay in lacag 35 milyan oo pound lacagta waddankan Britain ay dowladda ugu tala gashay in ay siiso reerar badan oo systemka postcode-ka la isticmaali doono iyadoo markaasi dowladda waddankan Britain ay sheegeen in taasi ay gooni tahay tan ay doonayaan inay haatan ka baaraan degaan oo xogayaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha waxa ay sheegeen in ay arintani muhiim tahay oo la doonayo in dadka laga kabo dhanka dhaqaalaha haba yaraateen iyadoo arrimaha gudaha ama arrimaha gudaha waddankan Britain ku jira asylumka ama qaxootiga oo waddankan Britain dad badan ay doomanka ay ku soo galayaan ayaa waxa la sheegayaa in maanta maxkamad ku taalo waddankan Ingiriiska nin u dhashay waddanka Turkiga ay ku xukumeen muddo 10 sano in ka badan kadib markii ay cadaatay in uu dad badan u fududeeyay in ay soo galaan waddankan Ingiriiska isagoo markaasi dadkaasi kaga saacidi jiray doomanka la soo raaco oo Yurubta laga soo raaco isla markaasna lagu soo gaaro waddankan Ingiriiska kadib markii taleefankiisa lagu ogaagay isgaarsiin ama wararka sida ay markaasi ugu tabin jiray dadka howlahaasi wada iyo waxyaabo badan oo markaasi ay maxkamadda ay ku dhawaaqday ninkani ayaa la sheegay in lacago 100,000 kor u dhaafaya laga helay akoonnadiisa taasina ay keentay in ay ciidamada booliska muddo dheer ku daba jireen ay gacanta ay ku soo dhigaan qaxootiga ayaa muddooyinkii dambe waxaad moodaa in waddankan Britain uu aad u kaga cabanayo oo culeysna u tabayo ciidamada booliska siiba qaybta qaabilsan dhanka immigrationka ayaad moodaa in maalmihii ugu dambeeyay waddanka aad ay ugu badan yihiin iyagoo wata vaanan waaweyn kaasi oo runtii goob alaale iyo goobtii laga shakiyay qabanaya gaaraya isla markaasna baaritaan ku sameynaya inta badan daawadayaal isbedelka dhanka immigrationka waddankani aad ay u baahan yahay
wiil aan runtii fran aan nahay oo isla markaas haysta dhalashada waddanka Netherlands ama Holland ayaa maalintii shalay wuxuu ila wadaagay isagoo ka soo laabtay waddanka Holland laakiinse residence ku leh waddankan in ay immigration waddankan aad ay markaas ay u jiljileen nasiib wanaag waxa uu ahaa nin shaqaysta oo waddankan Britain nin shaqaysta ah isla markaasna residency-ga waddankan haystay taasi markaas waxa ay tusaale weyn u noqonaysaa qof alaale qofkii aanan British ahayn oo waddankan Britain dibadda kaga imaanaya ama holiday imaanaya ama residence ku leh waddanka markuu dib ugu soo laabanayo in ciidamada difaaca xuduudaha waddankan ama immigration-ka loo yaqaano ay bilaabeen in qofka waddankan soo galaya passport waddan kalena haysta in si wanaagsan markaasi loo baaro lana ogaado waxa uu waddankan Britain uu ka qabto tan ugu wanaagsan waxa weeye qofka inuu ahaado qof shaqaysanaya oo nadiif ah si aysan markaasi culayska dhankaasi aysan markaasi kugu sii badanin sida dantaba ahaatee arrimaha immigration-ka isha ayaan ku hayn doonaa way arrin runtii muhiim ah oo bulshada Soomaaliyeed saameyn weyn ku yeelanaysa siiba dad badan oo runtii ka soo haajiray wadamada kale ee qaaraddan Yurub dawadayaal anigoo ku sii jira wararka waddankan Britain dawladda waddankan Ingiriiska ayaa maanta waxa ay sheegtay in ciidamada ay markaas ugu talagaleen in ay ka qayb qaataan ciidamada nabadgelyada ee Ukraine ay diyaar laga dhigi doono sitamaanada foodan ugu sahay iyadoo shirkii Ruushka iyo Ukraine uu meel wanaagsan u marayo sidee doontaba ahaatee daawadayaal waxaad moodaa in arrimahaasi uu hakad laga yaabo in uu galo kadib markii markab weyn oo Ruushka laga leeyahay isla markaasina petrol waday lagu qabtay badweynta weyn oo ay caalamka idil ay isticmaalayaan dad badan oo Soomaali ah ayaa laga yaabaa inay aaminsan yihiin oo kaliya dadka badaha leh oo kaliya ama xeebaha leh oo kaliya inay xeebaha ka kalluumaysan karaan laakiin se waxa jiro bad weyn oo aanan qofna lahayn badaha waa ay xisaaban yihiin intaasi oo mayl kadib waddanka wixii halkaas ka sii jira baddaas badweyn ayaa la yiraahdaa oo qof waliba ka kalluumaysan xitaa waddan gudaha Afrika ku yaala ayaa intuu soo ay markab ay sameystaan badda gudihiisa marka ay ka kalluumaysan karaan taasi ayaa keentay inuu Ruushku yiraahdo ma la taaban karo markabka noocaas waana in la soo daaya waxa telefishinada caalamka oo dhan la isku tusay iyadoo markaasi markabka dushiisa laga degayo iyadoo arintan ay noqonayso arintii labaad oo ay ciidamada waddanka Mareykanka fuliyaan marka laga reebo Venezuela arintii ka dhacday caalamka ayaa moodaa in xaalad aanan qurux badnayn uu sii galayo markaad eegto dhanka siyaasadda dibadda hadaad eegto siiba waddanka Mareykanka oo xaaladaha caalamka aad moodo in uu isticmaalayo awood buuxda oo uu isleeyahay caalamka haatan de qof ka xoog badan ma laho meeshaad rabto ayaad weerari kartaa aadna tagi kartaa saacado ka hor ayaa la sheegayaa in gabar dhalashadeeda haatan lama cadaynin laakiinse magaalada ay Soomaalidu ay ku badan yihiin ee Minnesota Minneapolis lagu toogtay oo ay toogteen ciidamada ICE loo yaqaano ICE-da kuwaasi oo muddooyinkii dambe ka howlgalaya qaybo badan oo waddanka Mareykanka ah madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in la baaro dadka ku nool magaaladaas Minnesota Minneapolis ee Soomaalidu ay ku badan yihiin taasi oo dad sharci leh ay dadku ay u badan yihiin waddankaasi laakiinse ay qolooyinkaas ICE lagu magacaabo iyagoo qaadanaya amarka madaxweynaha waddanka Mareykanka goobtay doonaan ay weerarayaan goobtay doonaan ay dadku ku baarayaan laakiinse arintan dilka ah ayaad moodaa in telefishinada waddanka Mareykanka iyo kuwan Ingiriiska ilaa habeenkan caawi aad ay kaga hadlayaan haweeneydaas ayaana la ogeyn runtii maadaama ay la sheegayo in haysato American passport yay u dhalatay wax qofkay u dhalatay ilaa maalinta Brito hadduu Eebbe subxaanahu wa ta'ala oo raali ka noqdo ayaan idin soo gudbin doonaa daawadayaal إلهي سبحانه وتعالى خير إيه وناك أيان كبرينا إلهي سبحانه وتعالى وحان كبرينا إنه عليس يدجر وناك دول قاضو إنه أولاد ربي سبحانه وتعالى ونو حفظه إلهي سبحانه وتعالى أنت لمتينا ربي ها ونحريسته أنت عافماتك قبتنا ألو عافماتك وكربي أنت نقل لمتينا
إله سبحانه وتعالى قبر يده واسع ولغانه وفتيمية. إله سبحانه وتعالى وحان وبريا تيم الرحمة جروب ملك العالم يكونوا ليين. إله سبحانه وتعالى إنه حفظ يا رب. إله سبحانه وتعالى وحديك أكبر أصحابي قبو جنب أن أجر إنه نجبت بادي هبينك حلا يرك فتني قبو بأي حي رجع صومالينا يعني هبينك حلا ويرك ربع شقار كمده لكن وحيد الله صاحب قاشان كنا لي مكانه وايو حدي هتريريهن إلى شتان هتقوليهن إلى شتان إله سبحانه وتعالى عليسيد هاتنجرة ونقدو هذا لكن سعرورتي أن كتكني بارر كسبان فدينا ودنك يا لتجيا إن يرى الإسكبور سنة مسكين غير كسبولا دتك يسمع دت بدنا وحاوي لقيابا إنك مركو هالكان كدوفة يوسليد إن يرى أي ثور كسبور سنة سانو دتك هالكاس جوجا باهي أي جرت دتك هو باهيين عدي يبهنيت أورنتي لقيابا إن حدير أو موفى أمالي كجتان حتى أي سنة هدون نين يوروب كيمت أو نين كانوا كلاكو إيجي هاد وهالكاس تقولي هذا إن أنت يدبان كسي وإن يرو فرا كسو عنيس أسجنا وأنتو دخوبو وحوكس عنايا إن إربه مرنا فرها لو سعدا مرنا عربها لو سعدا قفكم مركو دخوبو سوسن أكفن عربها بوكسو عنايا مركاسا وحالو دريا جبريرو لحية تبنجر إلى سديد تبنجرها ولو شرعي وسنة هات الشرعي قلعت كي هات سديد يتبسن الجبر كوين مبالغو دريا صاحب هو الجبر runtii ku kortay aaladan TikTok maskaxdeedana ay bisashay walow ay jiraan reer iska masaakiin oo hablahooda intay dadkan odayaasha iskaga daraan ma aragtay kadibna kontonkaas ama boqolkaas loo soo tuuray ayay nolol moodaan marka hablihina yaa la gooynin halkan ay caruurta laga cararin yaana la isoo karbaashin waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ragga xafido way caalamkan aad u jeedo haduusan rag joogin marka sidaan uma kala soconay داوديال هبين كان عاو رك هالكاسم كسر جريا وحجر عيارها بريميرشيب كودن كان إنجليز هبين كان عاو عيارها سيارة أنا دنكي كجل ولو عيارها خاركود هاتن دربيده أي بلعبتي إنجول ليسكالية حبين تاني كيك أوف عيارها سبورتي عيان إن ير أندونيا إن إيش أن مريا عيارها هاتن هرك أي مريا كوحدة بونيموث iyo kooxda Tottenham ay haatan ciyaar dhaxmaraysa daqiiqadii afartanaad ay haatan tahay laba gool hal ayaa waxa ay ku hogaaminayaan kooxda Bournemouth sidoo kale kooxda Bradford ayaa hal gool ever iyagana ku hogaaminaya kooxda Sunderland kooxda Crystal Palace iyo kooxda Aston Villa ayaa haatan waxay maraysaa ever kooxda Everton iyo kooxda Wolves ayaa haatan daqiiqadii afartanaad hal gool ever waxa ku hogaaminaya kooxda Everton عيارها كله لفيليو وحاكم هات السعودرال هاللي هذا كوحدة فولم يكوحدة تشيلسي أو مريسا إبر مانشستر سيتي يكوحدة برايتون إبر مريسا كوحدة بانلي يكوحدة مانشستر يونايتد وتوبرها إسكعيريين أيها بين كان عاود سديد يشن 8 دقيقة عيارته بلا بد أنت 5 دقيقة كذب سدوا كلا كوحدة نيوكاسل يونايتد يكوحدة ليديس أو رنتي وعذرك اللي يستقروا ماذا كل دوري ودن كان إنجليزك أي يجنا عيار أدو حساب بدن أي مركز الأحمرية sidoo kale daawadayaal waxaan rabaa inaad ilaahay marsan Spanish Super Cup kooxda Barcelona ay 5 gool oo ku dhan waxay ugu awood sheegatay kooxda Athletic Club ciyaaraha Serie A Campionato di Calcio Italiano ayaa iyadana habeenkan caawa ka socda laba ciyaar kamid ah ay haatan ay dhamaadeen ciyaarihii dhamaaday waxa ugu horeeyay kooxda Bologna iyo kooxda Atlanta oo laba gool ever ay guusha ku raacday kooxda Atlanta Napoli iyo Verona ayaa laba gool iyo labo isku dhaafi waayay haatan daqiiqadii 26 ay maraysaa Lazio iyo kooxda Fiorentina ever Parma Inter Milan iyadana ever Torino Udinese ayaa iyaduna waxa ay maraysaa ever daawadayaal habeenkan caawa wararka national and international news waxa idin kaga soo gudbinayay stuudiyaheena ku yaala bariga magaalada London ee wadankan Great Britain anigoo Saalim Dhowra ayaa daawadayaal idin soo gudbinay habeen waliba inta ana wararka aan ku kala tagin waxaan isku dhaafnaa daawadayaal peace and love peace and unity السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Perfect Moroccan Soap dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Britain iyo wadamada ay deriska yihiin waxay idinku bishaaraynaynaa in haatan waddankani la keenay Perfect Moroccan Soap oo tayadeedu aad u wanaagsan yahay isla markaasina organic ah halkii caag waxa ku jira 1 kiilo waxay kala yihiin olive oil black caviar oo ah ukunta malayga argan oil oo caan ku ah waddanka Morocco sidoo kale olive and honey markaas la isku daray haddii xaajigaaga aad dareemayso in maqaarkiisu isbedelay wiilkaagana maqaarkiisu caajis oo ka muuqdo inantan ay u baahan tahay inay hablaha kale ay la tartanto xaajiyadanu ay u baahan tahay in ay isyaro nuuriso Perfect Moroccan Soap wax weyn ayuu wajigaaga iyo jirkaaga labadaba uu ka bedelayaa haddaad ku qabayso jirkaaga waxaad dareemaysaa inuu aad u yara dibcay isla markaasina wax saliida ama kareemo uma baahnid Perfect Moroccan Soap haddii aad u baahan tahay macluumaad intaani ka badan oo ku saabsan saabuuntan waxaad nagala soo xiriiri kartaa taleefanka haatan shaashada kaaga muuqda haddaad leedahay ganacsi haddaad leedahay online business intaba halka aad joogto ayaa lagugu keenaya qiimahana waa mid markaasi ku qancin doona Perfect Moroccan Soap Perfect